Maxkamad ku taalla magaalada Budapest ee caasimadda waddanka Hungary ayaa waxaa lagu xukumay nin Norweji ah oo mutaystay xabsi gaaraya ilaa 10 sano oo xabsi ah. Ninkan oo ah 40 jir Norweji ah ayaa waxaa lagu helay dambi ah mid argagixiso, waxaana la sheegay in uu abaabulayay in uu ka geysto magaalada Budapest ee caasimadda waddankaasi faldambiyeed aad u culus oo uu doonayay in uu ku xasuuqo dad shacab ah. Ninkan ayaa lagu soo waramayaa in uu taageero aad u weyn u hayo ninkii xasuuqa ba'an ka geystay duleedka magaalada Oslo 2011 oo lagu magacaabo Anders Breivik oo xasuuqay dad ku dhow 100 qofood, kuwa kalena ku dhaawacay duleedka magaalada Oslo falkii ugu argagaxa badnaa ee ka dhacay dalka Norway. Ninkan ayaa la sheegay in uu qalab isku daba ridanayay oo uu doonayay in uu xasuuq ku geysto, waxaana lagu soo waramayaa in uu bar qaas ah oo ku taala internetka soo dhigayay caruur da'yar ah kuwa oo qaaqaawan lamana garanayo ujeedka iyo waxa uu ka lahaa. Waxaana sidoo kale la sheegayaa in uu soo dhigay bar internetka ah hanjabaad culus oo uu ku xaqiijinayo in uu qorsheynayo in uu faldambiyeedka aadka u culus doonayo in uu ka geysto magaalada Budapest ee caasimadda waddanka Hungary. Ninkan ayaa markii uu warbixintiisa hanjabaadda ah soo dhigay bartan internetka ah ayaa waxaa si degdeg ah uga howlgalay ciidamada sida gaarka u tababaran ee loogu talagalay ka hortagga argagixisada ee TIC, kuwa oo ah ciidamo ay Hungary talagashay ka hortagga falalka argagixisada. Ninkan ayaa maxkamadda markii la soo tagay waxaa lagu eedeeyay faldambiyeedyada uu abaabulayay iyo sidoo kale caruur aan qaangaarin in uu soo dhigayay sawiradooda weliba iyaga oo qaaqaaban, waxaana la soo bandhigay qorshayaashiisa iyo qalabkii uu ku talagalayay in uu xasuuqan ba'an kaga geysto magaalada Budapest. 40 jirka Norwejiga ah ayaa hadda waxaa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah, iyadoo lagu soo waramayo in hadda qareenka u doodaya ninkan ay ka qaateen raacfaan, iyadoo aan la ogeyn xilliga maxkamadda mar dambe loo fadhiisan doono maadaama hadda ay qaateen raacfaan. Halka warka kuwooda ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.